الله الرحمن الرحيم آدي آدو باساتي ضمان مواطنين الرئيس سومالي لان قوبتنا السوقية من حرمة الشيخ مالتها حفلة دي انتي وفتي هذا المتسعوني مواطنين الرئيس سومالي لان ملور الشوغان دلك يدي ودي سبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب أنا كوهذا يا مجاعة وفتي الهير قرن maanta igu soo booqday magaalada Sheekh soo dhaweynta aad muddada badan ka shaqeynaysa inay ka muuqato ee aad magaalada xidheen hadduu ganacsi yahay iyo hadduu gaari yahayba ee qarankiina ku muujinaysaan dareenkiina aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr soo dhaweyntaasi waxay muujinaysaa qarannimo Soomaaliland waxay muujinaysaa dad dalkooda وهالجماعية ونسايا وعود كنسايا ونقالة كنسايا وترك كنسايا وعدود كنسايا إلى تهير أيام موجسان سومال الضوء كمر خاتي هذه أبو قرق المن غيا وانا ما هذا يدين أنت كذب وكل هذا ده رجال مايو فرصة مركو هو حارب برايا مدحوي مرشحة مدحوين كحريك Somaliland أو مركز سوق قال يوم عيسى مصر ساتش لينا هو welcome ساتش هذا كار أقولتي سنوانك سو براي هالكم جامعات مركز دمبنا عربت أبدوي إن بدك سو شقية سو نقضي باع مشتري بيرلي نقضي إن بدن كشقية وحصو صاره أو وحي كشقية دبدي الجريه بير لو تعب كبعدنا مددر أن واحد حضرنا وارد محاضر بعض ما نحكي عن بعض الناس الحمد لله سنة كي مركان مدحونا نقضي إن بدل بالورقي سوق السياسة ده إجدا وسوقره وكتيرة ونقوسية ونتباررية سيروا ترى وكوسوا دورية ما تشاخ الخبر حزبك كلمية وهالكن بدل حديثي فقده وقت الوقت قابل أول يوزير بدن وين سوق قابل هذاك كلمية وحمات توصل عمد إن قارنك وحي حرمة شره وحي عقبضة وحي حرمة لقبتي إلى أن كم تشانو برشوينك كفر عاصمة مروريين دق مكستا يدك كسول جارك إلى جارو دبتنا ويسكون يستاه الله ضدك رأيك الدولة كسر نقدر الله وقرشية قرشها دير إذا خلقوا معمول أيو كاسوا واجب قرار دستوري صارم ووانو صعود ما أنت موقف كسوماليلاند تاجروا حوي سوماليلاند صدق يصدق كتير يشوفتي مدحوينا والبا قفوا أوحل قرص وقبتيبا هوشي وقلي مير وعان وما أنت سوماليلاند iyo Soomaaliya caalamku u kala yaqaan qolada ay isku marana hay ee buuqoodu badan yahay inaga halila caalamka inta dawladood ee jirta maanta waxay og yihiin inay kala dhahay Soomaaliya iyo Somaliland dabeetana ay tahay war maxaa wuxuu loo dhameyn lahay arintoodu ma dhici karto Soomaaliya 3 sano xorriyadahay laba dawlad kala gaarna way noohay laba qarno midoobana way noohay qarannimadina way duntay eeda duwidana iyaga lahaa intii aynu joognay ee 3 sano aan isku jireen oo dagaal iyo cunfi iyo colaad baynu ku ahariyo mo haddii aynu kala baxray sabab ay mar walba weey anaga inaga tirsan yihiin waxay tafirsan yihiin inaynu ahay laba dawladood oo si walaaltinimo ay isugu tagay si shanta Soomaaliyeed isugu timaado shantiina mid walba halkeedii ayay ku nagaatay waa meel ka dhacaya gardarro 30 sano socota inay xamar ka yimaadaba yiraahdo waa dalka tirsan waa ma xaqiiqiyan taa waa ka xoroon inaan ku noqdo maanta maahay wada la mariyay laakiin waxa loo harsan waa caalamka oo inagana iyaga i'tiraafka ay sheegtaan ma ahaanayaan qaybtayadii anaga i'tiraaf gaar la joognaa maanta dalku horumar weyn uu gaaray intii uu jiray anaguna xukuumadaha waxaanu isleeyahay waa dadaasheen inkastoo shacabku marxalad ka noqon doono oo noqon wixii shacabka ka soo jeestada
dadaalka iyo horumarka waxa garab socda cadow badan iyo dhibaatooyin badanna way jiraan oo marna adduunyadu waa tira sagaalaad oo toban ma noqoto labadaaba waynu ka wada tashan magaalada dadkeeda guudna waa u sheegaynaa oo uga mahadnaqaynaa inta akhyaarta ah ee gobolkana waanu ka wada hadli doonaa waanu joogi doonaa maanta haddaba maanta waxa intaa weheliya iyadoo cadowgaa badan leh maantana waxaa jira in uu nagu soo dhow yahay waktigii doorashadu waa inay noo horseedaa inuu dadku isdhex galo xisbiya la noqdo waa inay noo horseedaa dadku inaanu coloomin oo dhabarka isu jeedin ee dadku walaal noqdo oo qalbiga isu furo oo uu mid ahaado doorashadu waa inay noo horseedaa doorashadu xasarad iyo colaan hoose iyo faraanfar uma baahna fariintaas waxay u socotaa xisbiyada inta maamusha inta murashaxa kaambeynka galaysa iyo habka ay u maamulayaan doorashada kaasaan u soo jeedinaynaa dadweynahana waxaan u soo jeedinayaa meel wala joogaanba haddii maanta idinku aad madaxda soo saaraysaan inaad hubsataan qofka la soo saaraya ma shaqayn karaa oo caafimaad qaba mise ma shaqayn karo Somaliland ma aaminsan yahay oo dhiigga iyo dheecaankiisa iyo caqligiisa ma u hurayaa mise waa labaclabac waana ta ugu adag dadkana taasaan u xisaaraynaa qabyaaladda dadka ilaahay buu abuuray oo waa lagu abtirsadaa oo tacaaruf baa leeyahay laakiin in lagu tarax taga maaha odayaasha reer sheekh oo ilbaxa oo waaya araga oo nabadgelyada iyo horumarka aad u yaqaano waxaan leeyahay annagu waanadiina waa qaadanaa mar walbana annagu mala tihahdaa sii dulqaata ee bal hadda dee reer sheekh waa la wadayahay horta labada murashaxay sariyaan dee sheekh ways oo labadaba halkan talaaqooyinkooda joogaan markaa murashaxiinta miyaa la wada waaniyaan isagana cud baa la yidhahdaa sii socda qodob kale waa soo socotaana waxaa leeyahay reer sheekho dee waanada iyo dulqaadka hoos idhaada labadaba xidhahooda halkan ka degay waa sheekh labada murashaxay dadka weerarinaya labadaba xidhahooda waa sheekh markaa dulqaadka anagu mar walba waa qaadayna maantana waa qaadayna tii hore waa la qaaday laakiin dhagahay weli may maqan qolada kale oo la leeyahay waa waxaa wax ka daaya dee odaasha reer sheekhow dee haltaa dhex ka ahaan nana ka soo baqanina nana ku baqanina dee arrintaa u dhexeeya aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu